colaadeed ee ka soo cusboonaaday Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland waxaa saaka aroornimadii ilaa shalayto isku farasaaray aaga Ras Kamboni ciidamo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Jubbaland ee daraawishta ah ee halkaas ku sugnaa sida ay wararka noo xaqiijinayaan ciidamada Jubbaland ayaa si buuxda oo la wareegay magaalada Ras Kamboni iyo garoonkii goorno ay ka dhistay dawladda halkaas sidoo kale ciidamada dawladda saraakiisha hogaaminaysay intooda badan waxa isu dhiibeen dawladda Kenya qaar kalena waxa la sheegay in ay meel ay aadeen ana la garanaynin qaar badanna ay is dhiibeen oo hadda ciidamada Jubbaland ay gacanta ugu jiraan haddaba barnaamijkaasi oo xiisihiisa leh ayaa maanta waxaa marti inoogu ah stuudiyaha Somali TV Sheekh Abdiraxmaan Bashiir oo arrimahan wax badan kana digayay haddana doonaya in uu aragtidiisa ka dhiibto Sheekh Abdiraxmaan marka hore ku soo dhaw barnaamijka aad baan kugu dhawahay walaalkay jazakallahu khayr wayaak adigana sidoo kale ayaad u mahadsan tahay barnaamijka waxaa ila socodsiinaya anigu Cabdirasaaq Sheekh Mursal xagga farsamadana waa injineer Said Saalax idinkuna barta aad hadda naga daawanaysan ayaad wixii aragtaan noo soo dhigi doontaan Sheekh Abdiraxmaan marka ugu horeysa dawladda Xasan Sheekh markii uu xukunka qabsanayay wuxuu ku soo galay waad aad ma aragtay Soomaalida dhexdeeda ugu baahday oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah haatan oo adiga aragtay xabadii baa dhacaysa dawladihii dariskana oo Ethiopia ay kamid tahayna iskuma ay fiicna marka xagee wax ka qaldameen alxamdulillah salaatu salaamu ala rasuulillah bacd horta waan ka xunnahay aad inay maanta dhiig Soomaaliyeed oo muslina oo ka daadanayo dhulkeena inay isku dhaceen labada dawladda hoose maartay federaalka ka bida ee Jubbaland oo hogaaminaya Axmed Islaam Ambaxo Madoobe iyo madaxweynihii dalka iyo dawladii dhexe oo Xasan iyo Xamza ay hogaaminayaan inay isku dhacaan horta aad baan uga xunnahay waan ka murugoonayna kuma faraxsanin marka labaad anigu markii kelmadda aan maqlay Soomaali heshiisa dunida la heshiisa waan u sheegay madaxweynaha waxaan ku yiri waxa ku jira saddex qalad madaxweynaha iyo qolada la shaqeysana way ka caroodeen waliba qaarkood halkan markay yimaadeen bay igala hadleen waxa horta qalad ah Soomaali aan heshiin inaad tirahdid Soomaali heshiisa waa qalad Soomaalidu waa inay heshiiso yaa ka horeysa Soomaali heshiisa ma jirtaba Soomaalidu waa inay heshiiso dib u heshiisiin lama sameyn dib u heshiisiin rasmi ah ma jirto maxaa yeelay arrimaha ka dhacaya dibadaha ama Djibouti ka dhacana ama Ethiopia ka dhacana ama Turkiga ka dhacana meesha ka dhacana maaha arrin aan Soomaali ku heshiinayso Soomaali say u heshiiso khibrad dawliya taala oo Afrikaana taala oo aan ka qaadan karno experience waxa jira in yar oo Soomaaliya oo asalkiisu reer Djibouti yahay Abdallah Faatix baa dhacda buug Carabi uu qoray wuxuu ka qoray Soomaalidu dhex taala naarta irhaabka ololka irhaabka iyo amalka in la heshiiyo wuxuu soo bandhigay markaa 7 example oo la qaadan karo oo Soomaalidu diraaso ku sameyn karto oo heshiiska lagu saleyn karo waxa kamid ah ka ugu dhow Somaliland oo Soomaalida kamid ah maxay sameysay si ay dawladdan yar ee Somaliland u sameystaan waxa heshiiyay reeraha waxay fadhiisteen magaalada dhahdo maartay Boorama heshiis rasmi ah ay ku qaateen waxaana ku horeeyay kii kale hore oo Burco lagu soo qaatay maxaan uga jeedaa waxaas wax weeyaan Soomaalidu waa dad 5 arrimood ay walaal ku ah 2 arrimoodna aan walaal ku ahayn وإنا سأفهم وين سؤال الدين بي ولا القطعي لغات بي ولا القطعي دول بي ولا القطعي وحي ولا القطعي مصلحات إيا الدم بي ولا القطعي هل عدو أو أيلا هاي أو دبدي يجوده بكو هايستا إيا ولا القطعي لكن ما حي ولا الكوهين الله بارمه وحينا ولا الكوهين اسكو فكر معها سؤال دوينك ما نكوغو أو كلا تغي بس كحدودو وي كلا تغتي isku markaasi arintaasi waxay keentay Soomaali badan Soomaalidu waxayna walaal hadana ku ahayn waa Soomaali la kala wato oo iswadeen dad kala wata Ethiopia wadata Kenya wadata Imaaraat baa wata Qatar baa wadata waxa wata maartay Mareykan baa wata Talyaani baa wata Ingiriis baa wata Djibouti baa wata Faransiis baa wata waxaan badana wax la wada kala wato oo nin wal oo xaqqa fadhiya baarlamaanka nin baa taabanaya waa laga dhaxlayaa marka anagu waxaan rabnaa inaan Soomaalida la heshiisiyo
si loo helo soomaali heshiis ah heshiis ah midaas waa midda koowaad khaladka ah midda labaad ee khaladka ah waxa weeyaan soomaalida heshiiska ah horta waa inay ka horeyso contra social contra waa inuu dhaco agayga soomaalida saddexaad waxaan dunida la heshiisa arrintaas waa been weeyaan dunida heshiisa ma jirto dunida ninkii heesta ka sameeyey oo la oran jiray muxuu ahaa heestii uu ku qaadayay ninkii fanaankii soomaalida muxuu ahaa yuhuudi waa boqole rag baa beerinayo xasan samatar miya xasan samatar heestaasi wuxuu yihi han ku ballanna dunidu waa baaruud dunidu waa dagaal dunida nabad ma taalo duni heshiisa ma taalo falastiin iyo israa'iil ma heshiinayaan ilaa dhul ay kala qaataan maya annaka iyo dhulkiina baddeena ka doonay maan heshiinayna ka yaabin duni heshiisa adduunka ma jirto dunida waxa uu ilaahay yidhi qur-aankay ku qoran tahay wa acidduu lahum ma stadactum min quwa turhibuun awood diyaariya aad ka cabsiisaan kan soo weeraraya waa laga cabsadaa maaha inaa wax weerartid hubka waxaa loo samaystay waa radcun wa rahba inaa lagugu soo saqajaamin weeyaan iminka qofka idhahda masar baan weerarayaa 100 goor buu fikiraya 100 milyan oo ciidan ay haysataa maxaa khasaare ka soo gaaray qofka turkan weerar idhahda 100 goor buu fikiraya qofka idhahda waxaan weerarayaa matalan faransiiska 100 goor maraykan iska daaya shiina iska badaabi marka Soomaaliya 77 hortii amba 80kii qofka ku fikira Soomaaliland weeraraya dhowr goor buu fikiraya ciidanka Afrika ugu basbatay qaar baa ciidan bay dhisay la turhibuna bihi adu wallah marka qof aan dhisnayn awood labadii awood ba lahayn tii adkeyd iyo tii softiga ba lahayn xama qaban karo marka anu waxaan ka soo horjeedaa dunida lama heshiiyo dunida waxa lala samaystaa xidhiidh waxa loo kala saaraa saddex sokeeye waxa duwal shaqiiqa saaxiibo maaha shaqiiqa waa saaxiibo isku danbaatihiin iyo cadow waa waaqic waa siyaasada waaqiciya weeyaan saa weeyaan realitygu mid waa cadow midna waa saaxiib midna waa maxay shaqiiq waa walaal waa dhawaash u dhow yahay ka dhowna si dhow oo la shaqeynaysa iminka Djibouti iyo Soomaaliya waa walaal dhow waa shaqiiq isku dan weeyaan okay Kenya waxa noqon karaa saaxiib waa noqon karaa laano 2 milyan oo Soomaali dhex fadhida oo ka danaysata oo ka shaqeysata oo horumar ku gaadhay saaxiib baa noqon karnaa su-aasha Ethiopia su'aal badan bay ka taagan marka waxaan u baahanahay wadanana waa cadow ninka doonaya badda inuu qaato imaaraad isku geey waxaan badda u soo xamaan qaadanaya carabaha ajama noqdo waa cadow weeyaan marka taas baan u leeyahay meeshaasi ku dhagaas khalad buu ahaa asaasan oo kaas oo soo baxday inuu khalad buu ahaa golaha wada tashiga qaranka ee maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay ku midaysan yihiin waxaa loogu talagalay sida ka muuqata wada tashi iyo wadar ogol iyo in wadanka masiirkiisa hal dhinac loo dhaqaajiyo fadhigii ugu dambeeyey axmed islaam axmed madow uu ka soo kacay asagoo ku doodahaya Jubbaland Puntland iyo Khaatumo iyo dad badan inay ka maqan yihiin hadduu doono asaga siyaasadiisa wato dawladdu waxay ugu bedeshay inay ciidamadeeda geyso xabadna meesha ka bilaabato yaa qalad kala saaraya okay horta waxa qaladka la saaraya qofka fahmayn wadanka uu xukumo sidoo yahay dalka aad xukuntid sidoo yahay maanta waxa jira waxa la dhahdo curadkii waxa dhahda federaalka Soomaaliya curadaha federaalka Puntland maanta ma joogtaa ma way maqan tahay shalay way iskhilaafsanaayeen ninka la dhahdo farmaajo waan macnayn kareynaba laakiin farmaajo markuu socday xasan iyo diniyooda socdeen maxaa kala kaxeeyay maxaa kala soconayaan maxaa dawladdii federaalka u ahayd curadka oo asaaska u ahayd ay kaaga maqan tahay ood meelo kale u meeraysanaysaa waa midda kooda haddana bacda qaliil Jubbaland maxaa ku daray anu waxaan aad ula yaabay anoo fikiraya si fiican ninka Xamza dhacdo khudbad buu akhrinayay 4 sano 5 sano ka hor wuxuu ka akhrinayaa Kismaayo wuxuu leeyahay dawladdan dastuurkii waxay ku shaqaysay Kismaayo ee Jubbaland iyo kii dawladda dhexe annaka Axmed Islaan madaxweyne ka dhigayna nin naga hor joogsan kara ma jiro fariiq ayuu u diray
wuxuu u diray farmaajo dowladdii farmaajo u diray dowladda dhexe isagii uma iminka hadlaya oo kule dastuurkii waad ku tumatay kana waad ku tumatay waa lagugu soo celinay oo badanaa ninka saaxiibkaya wuu kala afleynayaa markaa saaxiibkay waa saaxiibkay isku dacwad baan ahayn haye isku wada xalaqatul islaax baa ku wada jireen marka waanan yamanna wada joogi jirin hoos dhaqaala aad baa isku dhaqaala si fiican ninka saaxiibkaya waan la yaabay muxuu labaa la afleynayaa waay maxaa ku adibayaa mararka qaarkood waxaa jira waxa la idhaahdo qofka haddaad gaari weydid gacantaadu isaga isku dil waxaa jirta waxa la idhaahdo imaa goyseyna gobolkay baa kugu yaala soomaalida imaa goyseyna gobolkay baa kugu yaala marka waxaa la idhahdaa maxay maroodi isku jabi lafa maroodi waa la isku jabiyaa qofka waa la isticmaalayaa ad waxaa tahay imika mustacmal war adu gobol baa kasoo jeedaa gobolkaaga waa maxay waa jubbaland shacbiga jubbaland baa anu la hadlay 99% amisaan bay la socdaan ama dulmi ha kula socdaan ama cadaalad ha kula socdaan dadkii oo dhan waxaan fadhinaa maaha magaalada Minnesota qof kastoon arko oo ka yimid asalkiisu halkaa ka yimiday wuxuu ku leeyahay islaam bay la socdaan dumarkii ma arkay hooyinkii ma arkay odayaashii ma arkay odayragii janaalada ahaan jiray dowladdii Soomaaliya waxay ku leeyihiin anaku halkaasaan taaganahay inaan kaga waxay lama garanayno marka dimuqraadiyaddu waa maxay waxay dadku u bataan weya dadkii meesha deganaa waxay u badan yihiin anu axmed islaam waan la yaabaa waxaan dhahdaa waa ninkan meesha mu ka dalbaxay mu iska daayo isaga waa goonidiis taas laakiin dadkii watay hadday wataan maxaad oran kartaa qofka dictatorka wuxuu ku xiyay marka la wadan laakiin dadkiisa baa ku jecel uu qasbayo iyo imika Erdogan waa la wataa dadkiisa ku celinaya dadal ma oran karaysid laakiin Bashar dictator baa wadii arkay farxadda dhacaysa marka adiga waxaa muhiim ku ah maadaama aad tahay madaxweyne Soomaaliyeed war Soomaalida xakutid ma aha xamar hada xamarun maaha meesha yar ee uu maxaa dhadaa uu degan yahay ya 4 kilomitir dhaka oo maxay 4 dhaka oo baxa karayo marka aad ciidan qaadayso oo geynaysaa marti kilomitiro 100 kilomitir aad geynaysaa ciidan marka aad waliba anu waxaan ka nacsanahay dhiig Soomaaliyeed daadinaysaa marka aad dhalinyarada yar eeg dadkan uu qaado horgeeyay Jubbaland u geeyay oo dadka shabaab hor joogay shabaabka fursad siinaya absolutely fursatu alxayaat busina inuu noolaadaan fursatu istimraar inay sii socdaan fursad kale loo bixinaya fursatu tadakhul in la soo fargeliyo wadanka waxaa ma shay ka adeegtaan waxaa jira jazakallahu khair waxaa jira sheeko mar laga sheekaysan jiray oo dhacdo Soomaalidu ma maamuli kartaa hal maamulo tiibana laga saaray mar dhow Soomaalidu maamuli kartaa oo lacagtii baa loo soo ceshay oo hubkii baa loo fasaxay wixii dhan baa Soomaaliya loo soo daayay imika waxa la oran doonaa inuu aan khaldanay oo inaa dib lagu cesho wistaxtal wisaaya laana dadkan isma maamuli karayaan adiga arkay dhig kala daatay anu maalin hore waxaan idhi 19 kii ku noqonay maxaan u 19 ku noqonaysaa waxa weeye marka aad u fiirsatid kelmaddu Axmed Islaam yiri war Puntland way maqan tahay Khaatiman way maqan tahay anna waan ka socday macnaha waa inaad u fiirsatid Soomaali waa dhaqane waa reer bal sheegay reer weyn oo Soomaalida ka mid ah yaa maqam ay ka tahay marka dagaalka ugu ku noqonaya marka 9 ku noqonaya 9 koodii iyo koodii ku noqonaya marka aqligaas qofka nin jaamiciya oo professor oo jaamacad dhigay marka qaarkood waxa la sawir siyaasiga Soomaaliga ee jaamicigi marka qaarkood agee dhibaato ka jirta su'aashaas weydiinaysa aniga waxaa jirta kelmad aan sheego Soomaalida waa inay iga qoraan aan jecelahay madaxda Soomaalidu intayna madax noqon ka hor shaqadii ka soo shaqeynayeen maxay ahayd jamciyad bahayd jamciyad madaxda oo dhan ba inta ugu badan jamciyad mayna dhaafin waliba ku wadaadada association ka soo shaqeeyeen associationku muxuu shaqadiisu ay tahay ma taqaana fuqara soo qor wax u qaybi dowladnimadii waxay u fahmeen ma intaas kaalmaati ku waa kaalkaas aqliga u fiirso waxaan ku dhadaa war ka baxa maskaxdii associationka maskaxdii state ka gala dowladda gala min aqli aljamciyaat ila aqli dawla association ha ku fikirna iyo jaamacado hore dhigayseen iyo ha ku fikirna state gala imika waa wax kale stateku
وشقة كلا استيتكو ahay استيتكو محو شقديس ومحي وحويان تنازل ولا اسكو تنازله تفاهم وإلا يسفهموا تناصح وإلا يسوانيو وإنا تعاقد وإلا شيس لقالو حويان خبير نقطة ويان دول كيستيك وحول معاوية لبك الموضوع عجيبة تاريخ كقرأ معاوية وحولي أنيقو وحان هايستا تنتا مركي شعب كجيلان وان رعاه مركي أي فراك قادان وسوير الجيلان adkaysanaya هذا هو سياسي وسياسي يعني شعرة معاوية الله يقال ولذلك ضدك قاركود واحد هذا سياسي وحوبة طيبة علي والدهاء معاوية طيبة علي wadaha Muawiya والدهاء معاوية طيبة علي عني وناك سنبها وحكمة بضن وناك فرق بضن وحلو ما حكم كانوا الدهاء لو بايع inaaf ma intaas الدهاء دو سياسي وين ماكرة لو بايع مركا ماكر ما أدرك ما هو ضدك حلقة معها سيد ولد وببادلها كشقية مركا شيخ حسن أنا وحاول لها ما أنت وحويان عيدا كاكي قاربا كوكو حوتيوبيا كينيا قاربا ديك داتا لبضوا وضع عيدا لبضوا وحي أحمد أبو بكر ديتنا أدوك هادي منايا هذا مدحوينها wixii inta ka dhintan wixii inta ka dhintan adeeg kaa dhimanayaan wixii khasaare ka yimaada meeshaasi aduu kaa imanayaan marka aqligaaga waxaan ku leeyahay xabad ku darso waa tahay ololahan hadda socda Jubbaland waliba ka dhanka ah markaan ka tagno siyaasadda madaxweynaha ee loo joojin maayada ah oo Puntland uu joojin waayay bedelku walaal oo dhihi lahaa oo maartay la fariisan lahaa wada hadal lagu dhameyn lahaa oo hadda ra'iisul wasaaraha Jubbaland runtii xoogiis inta ugu badan uu gelin hayo asagana Jubbaland baa soo saartay maxaa ka dhalan kara isleedahay asaga siyaasadiisa mustaqbalka ama dhibaato intee laga u geysanaysa wallahi laba midun ba filda saaxibka inuu ku yiraahdo ninkan la yiraahdo Xasan war tolka bad kii ka socday inuu ku yiraahdo waa suurtagal oo shaqadiisa halka ku lumiyay oo shaqadiisa ku lumiyay oo meel ku laaban hadana waayday laano dadkaagii wadka farabaxday arun taasi waa mid weeyaan mid labaad waxa weeyaan in ay meeshay Soomaali ku dumaysay inuu Xamza joogo meeshay Soomaali ku dumaysay inuu joogo maanta aniga waxaan la kulmay dhalinyaro badan oo reer Muqdisho oo imika joogta magaaladeena joogta waxaan ku maxaniga soo ceshay waxay yiraahdeen wada ku istaagay dhaqaale u istaagay cabsi baa abuurantay dhaqaale kiini wareegay Ethiopia wareegay meesh la tii kala tagay jijiga imika aad boo shidmaysaa waxa shiday waa dhaqaale xamal yaalay waxa kan shiday waa dhaqaale xamal yaalay marka xoolay ba ka yaacay Muqdisho qore jaadi bado xoolay soo jiidatay wal xadaya maya dadkii waa kala yaacay cabsanaya خوف ba bilaa burbur mustaqbalka dheer baa laga cabsanaya walidalika nin baa ka furay waxa dadku waa xawaala nin baa ka furay Muqdisho meelaha dumarku ay ku yara timaha iyo ku qurxiyaan wuxuu yiri labadii sano dambe ee farmaajo dadku inta aad u yimaadeen bay dad badani ba oo wasiiradu ay qabaan ba meesha ay majira aroos yaa dhici jiray iyaga meesha asqo soo xidhay لأن ubadkoogi wasiiradu kiinayeen qof kaliya iska dhac meesha maqaa aljazeera saxda hotelka wala kala yaacay marka waxaan u timo feeray waan way buri ambaaruf abaawu hagaajina jirka waa weynay marka waxaas wuxuu tusayaa inay wax soo yaraanayaan marka saa daraadeed Xamza eeg dowladda Soomaalidu khaladada weyn ee galaysa waxa kamid ah dowladdu markii la yiri war dowladii Maxamed Siyaad Barre waa la riday waxa loo ridayna waxay ahayd dowlad presidential madaxweyne oo xoog u adag waxa rabnaa baa la yiri dowlad baarlamaani ah madaxweyne awood iska leeyahay tan baa la sameeyay baarlamaanka ra'iisul wasaare fiican oo baarlamaanka laga xukumo iyo madaxweyne isagu madaxweynimadu haysta wuxuu imika wadaa inuu dowlad madaxweynaha samaysto Xasan yaa u saxaya oo wada Xamza khalada taariikhda galay ma yara Xamza wuxuu wadaa inuu burburiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur yaa ka dagaalamay imika nidaamkii federaalka maaha nidaamkii baarlamaaniga ahaa dastuurka laga bedilaya oo nidaam madaxweynaha la sameynaya si uu Xasan madaxweyne ku sameynaya Xasan wasaaraha baabinaya arrintaasina maaha arrin la isku waafaqsan yahay arrin Soomaali dan u ahna maaha arrin Soomaali waa soo dhaafnay ma laameyno waxaasoo dhan waxaa fasaxaya waayo Xamza marka Xamza waxa uu muuqdaa Xamza inuu yahay
waxaa jira aniga Djibouti markaan ka sheekay waxa dhada ra'iisul wasaaraha waxa laga dhigaa nin cafariya madaxweynaha Soomaaliya sadugtay laakiin ra'iisul wasaaruhu waa bila awood maxal markaa muxuu noqday ma taqaan wasaaraha Djibouti joogay waxa loo yaqaan balato ayuu noqday balato waa ninka saacil bariiska ma taqaan kan oo loo dhiibo fariinta gudbiya marka madaxweynaha fariimaha wasiirada ugu dhiiba Xamza Tiibu noqday fariimaha loo dhiiba wuxuu ka baxay ra'iisul wasaarnimadii culusayd hadda statekiisa baa lagu burburinaya uu lahaa ama ninkii muxuu ahaa ka wareeyay muxuu ahaa khayra ama kii ka dambe la dagaalami jiray muxuu farmaajo muxuu ahaa roble khayr ilaa iyo cabdi wali ragii hore dhan waxay ahaayeen saacid ra'iisul wasaare hal baa buuxa madaxweynaha isku dhacaan waxa adduunka hore buu ka jira isku dhaco laakiin waxa laga rabaa in la ilaaliyo ama inuu sharaf ku joogo iyo awood ama inuu meesha baneeyo inuu baneeyo waxa dhaxay malaha inaad dadka ka iibso tiraadid baabi bal wasaaro madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Saad Barre soo cishay adigu waa burburinta ummadda Soomaaliyeed buu ka qayb galaya waa tahay shaqada waxay dhaceen dagaalka ugu horeeyay dawladda ku guul dareysatay dabcan waxay istusinayeen inay Jubbaland ka adkaato si maamul goboleedyada kale ugu qos qaataan tii hadda waxaad moodaa inay faraha ka baxday maxaa hadda tala ah anigu wallahi horta aan siin lahaa afar talo madaxweynaha tala aan siin lahaa ilaahay ka cabso waa talada koowaad taariikhda iska mudoobeen nin waxa tahay aqoon-yahan oo doctor haysta wadaad baa tahay quraanka iyo xadiiska garanaya maalin kasta jimcaha miskiid baad ka hadashaa marka waxaan ku oran lahaa intaad ilaahay ka cabsatid xoolaha iyo dawladdii iyo wixii dhan isku darsatee iska jooji waxaan oo aakhir wax ku raacay ma jiray 70 jir baa dhaaftay hadiyto 70 sano cumrigaagana waa dhaafay taariikh ka tago ummadda Soomaaliyeed macna uga tag hadaad ku guuleysan karina iska dhig talada waan siin lahaa isaga Axmed waxaan oran lahaa shicibkaagu waa ku wataa waa caddahay laakiin waxaad ku dadaashaa inaad noqotid qof positive ah oo u fikirin Jubbaland oo qorate oo u fikiraya Soomaalida weyn ee ummadda Soomaaliyeed taariikhdaada hore iska dhaaf taariikh cusub aadna samayso ayaan kula talin lahaa nin dani dhahdaa jira ninka dani dhahdo waa nin Soomaaliyeed oo isaguna gobol dhan xukuma isagana waxaan ku oran lahaa war maanta waa maalintii Puntland talaabadii Puntland qaadi lahayd qaad iska daa oo cadheysanahay iyo madaxweynaha isma fahanno maayne arrinta heshiiskee gal Soomaaliya badbaadi taariikhdana waa wax ku furan inaad noqotid qof taariikhda gali kara yaan isagana ka oran lahaa ugu dambeynta waxaan oran lahaa dadka ay u furan tahay inay heshiis ka furaan meeshaas oo culimadu ay ugu horeeyaan culimada iminka waa laba un bay u kala baxeen culimo uun manaabirta joogto halkaa xadiis ka sheegta iyo culimo dawladda la socota علماء الدولة ومارتي مسكيتك مدحوينها iyo hareerihiisa ka khobadaysa waana waxaan u diidanaa meel la yiraahdo majlis fatwada culimada loo sameeyo fatwada madaxweynaha iyo dawladda u sameeyo sida maartay kuwii Sacuudiga iyo Masar iyo inaan saan noqono maaha culimadii la yaqaanay Soomaaliyeed xorta ahayd hadday joogaan Kenya hadday joogaan Soomaaliya hadday joogaan Soomaalida Itoobiya hadday joogaan hadday Yurub iyo Mareykan joogaan waxaan leeyahay culimaduna waa inay xamaan qaataan oo dagaalkaas inuu dib inoo celiyo sagaashanadii nagu cisho iyo wixii hore laga ilaaliyo oo heshiiska la qado waliba culimada maartay xorta ah haggan degan amba Yurub degan way xamaan qaadan karaan ilaahay dartiina wax xamaan qaataan iyo aqoonyahanka intaas oo Allah insha Allah ta'ala jazakallahu shaykhan aad baa mahadsantahay intaasi waxa ku dhan barnaamijkii koobnaa inooga hadlaynay dagaalada dib uga soo cusboonaaday maamul goboleedka Jubbaland oo ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Jubbaland isku farsaareen waxaana marti noogu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan oo aad wada taqaanaan talooyin fiican runtii ka bixiyay arintaas iyada barnaamijka waxaad la socodsiinaa anigu Cabdirasaaq Sheekh Mursal xagga farsamada waa injineer Siyaad Saciid Saalax intaanu barnaamijkan mid la mid ah dib hawada